السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركل iyo barnaamijkeeni kartida bulshada oo aad hadahan oo kale ka daawataan shaashada caalamiga ee Saab TV. Toddobaadkan waxaynu martiyaa abwaanad Kaltuun Naasir Xuseen oo ah inaan dhalinyaro oo ka qayb gashay tartanka haweenka ama hablaha ee BBC-da laanteeda afka Soomaaliga kuna guuleysatay kaalinta koowaad. Waxaanu nasiib u yeelanay inaan maanta kaga duubno barnaamijkan xarunta gobolka Togdheer magaalada Burco. waxaanu ka wareysan doonaa iyo hanaanka uga qayb gashay taariikhdeeda aqooneed iyo waliba suugaanta inay hiddo raacayso iyo inay iyadu uu ku kow yahay. ku soo dhawow Kaltuun barnaamijka kartida ee Saab TV ka bax. Axmed aad baan u dhawahay walaal aad baa u mahadsantiin. ugu horeyntii Kaltuun waxaad nooga warantaa bal background-kaaga xagga aqoonta ama taariikhda iyo halkaad ku dhalatayba aan iswada raacsanay. waxaan ku dhashay oo aan ku barbaaray waxbarashadii dugsiyada hoose dhexe iyo sarena aan ku qaatay magaalada Burco sanadkii 2014 ilaa 2017 waxaan ku noolaa Hargeysa halkaas oo waxbarashada heerka koowaad jaamacadda ka dhiganayay. waxaan ka mid ahaa ardaydii waqtigaas wax ka baratay jaamacadda Edna Aadan ee ku taala Hargeysa. wixii aan bartayna wuxuu ahaa in qayb ka mid ah caafimaadka oo loo yaqaan midwifery ama umulsanimo. intaa kadib waxaan ku soo noqday Burco halkaas baan ka bilaabay shaqooyin kala duwan oo la xiriira aqoontii aan bartay ilaa haddana aan ka wadaa. waxaan ka shaqeynayay ilaa 17 tuulo oo ka mid ah gobolka oo aan ka qabanayay shaqo la xiriira aqoontii aan jaamacadda ka soo bartay. tahay waxaad isku darsatay qaybtii caafimaadka iyo qaybtii suugaanta. haddaan dul istaagno Kaltuun mayada ugu horeysay family-ga inay wax tiriso gabay tiriso ama suugaanta dhanka soo hidda raacaysa. suugaanta waxaan oran karaa waa hidde waayo xagga hooyadii family qoyskayaga gabay xaddi baa awoogi ah. xagga kale dhanka aabahayna waxaa la sheegay inay lahaayeen dad gabya iyo dumar buraanbura labadaba. marka waxa uu noqonayaa inuu yahay hidde. ma xasuusan kartaa markii koobaad ee astri waxbaad alifi kartaa ama waxbaad tirin kartaa? markii koobaad maanso aan curiyay aan markaa aan aqoonsaday inay tahay maanso caadiya ama suugaan waxay ahayd 2011 bishii shanaad waxaan joogay Burco. taas bay ahayd. Kaltuun yaraanimadii haddaynu yara dul istaagno intaynan gabayga iyo arrimihiisa u sii gudagelin markaad yareed adigu maxaad ku hamiyi jirtay inaad noqoto ama jeclay? markan yaraa waxaan aad u jeclaa markaan waxbarashada ku jiray ilaa dugsigii hoose dhexe iyo sareba waxyaabaha ku saabsan af Soomaaliga ama suugaanta xiisadaha Soomaaliga waxaan aad uga xiiseeyo waxa kala baran jirnay Soomaaliga iyo suugaanta iyo sheekooyinkii ma aan ku dhigan jirnay dugsiyada waxaasoo dhan aad baan u jeclaa. marka waan dareemi jiray inaan wax suugaanta igu soo jiidaya ay jireen. marka waxyaabahan ku hamiyi jiray waxa ka mid ahaa inaan maalin un arko aniga wax curinaya ama hal abuur suugaaneed sameeyay. sidoo kale waxa hamiyadeeda ka mid ahaa inaan noqdo dhakhtarad haweenka u gaar ah gynecologistiga waxa la yiraahdo. imikana insha Allah aan jeclahay inaan ku dadaalo oo dariiqan u mari lahaa falowgeeda qabto. labadiiba wax albaabkooda waad qaraacday si fiican baad u qaraacday labadoodiiba. waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga dhex bixi doonto adigoo ummadaadana wax ku qaban doonto. maalintii waxaad igu tiri waan dareemay anigoo yar baan dareemay waxbarashada afka Soomaaliga aan baranaya. yaa ku yiri Kaltuun waxbaad tirin kartaa iyo ummad baad soo hor istaagi kartaa? markii ugu horeysay qofkii ugu horeeyay horena waan u sheegay ee suugaanta dhiirigelinta ugu weyneed aan ka helay wuxuu ahaa Abwaan Hadraawi. markaan dugsiga sare dhigan jiray waxaan ka mid ah ardaydii Sheekh Bashiir dhigan jirtay. Hadraawi wuxuu noo iman jiray anigu science baan ahaa ardaydii socialka baran jiray culumta bulshada wuxuu iman jiray maalmaha Isniinta iyo Salaasada. maalintaas ardaydoo dhan waxay jecel lahaayeen inay xiisadooda kala ka imaadaan oo ay Hadraawi imaadaan. arday kastoo wax curin karaya ama isku ogaan wax hal abuurnimo ku jirto wuxuu u keeni jiray wax kamidaas wuxuu curiyay sidoo u saxo. maalmaha kamida ayaa waxaan damcay inaan tuso Hadraawi maansada ugu horeysan ku sheegay markaas isagoo wali aan gaariga ka digin oo iskuulka yimid baan soo dul istaagnaa aniga laba hablood kale markaa waan ka yar baqanay anigu dabeeto inta saan noo eegay buu xir adeer ma gabay baa sidaan
markaas baan soo yara dhiiranay markaa waxaan ku nidhahaa markaa caado wuxuu lahaa marka maanta kaa qaado inuu beritoolo haddii isniintahay kuu soo noqdo ama weyga dambe maalintaa wuxuu igu yidhi waxaan gelayaa safar markaan soo noqdo insha allah inoo ahaato markaa waan ka tagnay markaan in yar socnay wuu noo yeedha haddana markaa wuxuu igu yidhi maasadu way fiican tahay ee berito daabuurka ka akhri safka ardaydu gasho marka intaanka galaasyada la bilaabay waayi baan ku uri laakiin maan akhrin ee waan baqdo waan iska qaatay maasadeedii laakiin waxay ahayd wixii ugu horreeyay dhiirigelintii ugu horreysay aan helay ee markaas aan isku dayay inaan waxyaabo kala sameeyo waa suugayahan taariikhda Soomaaliyeed baaldahba ka galay artoonay tartan baad ka soo qayb gashay laanta BBC qaybta afka Soomaaliga ayaad kaalinta koobaad tartankii hablaha ay u qabatay suugaanta ayaad u gashay tartanka see la idin soo xulay sida loo xulayay ay noo sheegan waxay ahayd marka gabayada la gudbiyay waxa loo saaray garsoor marka magacyada hablaha waa laga goynayay gabayado kaliya la gudbinay marka garsoorku kolba cid ay isku raacdo inay gabaygeedu soo baxay ayaa la dooranayay saas bay sidii loo xulanayay hablay tartamay marka garsoorku iyay ahaayeen iyaad ka xasuusan kartaa iyay ahaayeen ma garan karnano ma email baan ku dirnay gabayada markii dambena dadkii guuleystay waa lala soo xidhiidhay saas bay xafladda kaga qayb galeen laakiin garsoorku maan joogin anoo goobjoog maanu hayn meeshii maxay gabayada lagu xulanayay manaanan arag markii dambe garsoorayaashii markii aad kaalinta ku guuleysatay xataa cid kuu sheegtay weli maad arag ciddii idin soo kala xushay may garsoorayaashii gabayada maanu arag laakiin waxaa nala sheegay inay garsoorku sidaa wax u xulanayeen laakiin goobjoogayaashiina naloogama tilmaamin anaguna maanu doondooninba adigu markii hore doonaysay markii hore aad niyadda ku qabatay inaad tartanka ka qayb gasho habkii iyo hanaankii aad martay sidee buu ahaa gabaygaygaan diyaariyey waxaan waxyaabihii shuruudihii oo dhan baan raacay oo shuruudaha marka hore BBC-du nala wadaagtay meeshaan ku dhashay magacayga halkan joogo iyo nambarka lagala soo xidhiidhaya baan email ku diray emailkiina lagu yiri ku soo dira ayaan ku diray dabeetana saas buu ku gudbay muddo kadibna waa layla soo xidhiidhay waxa la sheegay inaan ku jiro dadka guuleystay laakiin maan ogeyn kaalinaan galay ilaa BBC-du ku dhawaaqday dadweynaha isku marun baan maqalnay baan odhan karaa mid kaayana muu ogeyn kaalinta uu galay ilaa iyo BBC-du markii xafladaan joognay ay ku dhawaaqday markaas maan kala ogaan hablo soo ay haayeen meeshay doonana joogaane imsa hablood baa hayden badan sidii awtid tafatiraha BBC-da Cabdullaahi Cabdishaaq sheegayay waxay haayeen dad hablo 100 tiradoodu sare u dhaafisay laakiin tira cayiman oo tartanka ka qayb gashay ma garan karo maadaama aan email ku dirno aanan meesha iskugu imanin ma garan karno dadkii inta tiradoodu saxda ay ahayd laakiin hablo 100 qof kor u dhaafisay tiradoodu inay ahayd baana loo sheegay marka dadkii hablihii faraha badnaa ee goobta ku sugnaa xafladda la idinku qabtay may ahayn hablaha meesha imid wuxuun bay ahaayeen saddexdii waxa loo yeedhay xafladda waxa looga yeedhay saddexdii qof ee guuleystay laakiin may ahayn dadkii oo dhan looma yeedhin waxaa la doortay saddexdii qof baa xafladda loo qabtay oo la abaalmariyey saas bay ahayd goboladii bay kasoo kala jeedeen saddexda hablood adiga garanaya oo tog dheer ba kasoo jeeday magaalada Burco labada hablood kale xagee kasoo jeeday waxay kasoo jeedeen Hargeysa iyo Muqdisho kaalinta labaad waxay ahayd Muqdisho kaalinta saddexaadna Hargeysa bay ahayd tartankii gabayga lagu soo xulay tartanka hablaha oo dhan aad kaga badisay lagu dhawaaqay waad noo akhriyi doontaa laakiin markii aad saddexdiina la soo xulay lagu yiri waad guuleystaa tagtay lagu dhawaaqay kaalinta koobaad dareenkaagii shucuurtaada wallahi dareenkaygu wuxuu ahaa qof wuxuu sugayay helay wuxuu dareemay aad baan u farxay inaan guuleystayna aad baan uga farxay kaalinta koobaad inaan galana waxa aad iga sii farxisay bay ahayd waxa goobta ku sugnaa mas'uuliyiintii laanta afka Soomaaliga ku sareysay waxa kaloo ku sugnaa goobta wasiirro ka tirsan dawladda Djibouti iyo wufuud kalaba dadka noocaasa ee qiimaha iyo milgaha ku lex Soomaalida markii agtooda lagu maamuusay riyadaadii ahayd inaad marun curiso oo curintaadii loo maqraati furay ma istirmaantay riyo
haa aad wallaahi waxaan dareemayay farxad waxaan in badan isku riyoon jiray bay ahayd dad waaweyn oo weliba ay ku jireen abwaano fanaaniin madax inay weliba ka helayeen gabaygayga aad bay ii farxad gelinaysa waxaan weligay ku riyoon jiraan maalintaas arkay bay ahayd aadna waan u farxay bal nala wadaag gabaygii maalinta stagekali ku stage lagu kaltuun naasir sacabka utuma gabayga hebel bay ku guulaysatay bal bulshada saab t v ka daawanaysa maqashii gabayga waxaa la yidhaahdaa baaq waxaanu odhanayaa bismillaahi baab weeye gabay lagu bilaabaye suugaan buruudliyo murtan soo bandhigayaaye baraaruga dadkayganidha 100 kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan belaadaadiniye baaq waxaan u dirayaa dhammaan belaadaadiniye baydhaba hargeysiyo jigjiga badhan ilaa faafan beledweyne xamariyo bilbela booramiya awdal burtiinliyo bahdaydii sanaag baycidaha yaala boosaaso xeebaha berbera gacalka buhoodle boosaaso xeebaha berbera gacalka buhoodle beel qudha dadkoo wada ahoo nabad ku baashaala geyigoo barwaaqa ah dhulkoo badarkii u howray berigiioo badeenoo nimcadu gees kastaaba buuxdo baahida shisheeyaha dadkoo badi ka waantoobay jeeroo dalkeennii bilaa bilicdiisoo nuurto beegsan maayo guuliyo inan libin ku banaaye baratamaay dhulkeennan rabaa inuu baadhadhaaye gabayga baaq intaas buu ka koobnaa ujeedadiisuna gabaygaad ka dhex fahanteen baan u malaynaya waa tahay gabay runtii aada miisaan iyo qiime leh oo maskax diyaargarowday oo tartan u diyaargarowday maankeeda iyo maskaxdeeda laga soo tuujiyey waa yahay waa tahay jabuuti baa tagtay jabuuti markii ugu horreeyay haa jabuuti markii ugu horreeyay aan tegay bay ahayd jabuuti daawadayaasha aan in badan arag jabuuti bal u yar sawir jabuuti iyo xaaladeeda iyo nolosheeda iyo jawigeeda iyo bal u yar durista wallaahi jabuuti horta magaalahaan waa magaalo aada u qurux badan oo qurbe u eg tahay marka magaalooyinkeena loo eego jawigeedu waad iska garanaysaa waa yara xeeba kulayl yar baa jiray laakiin waa meel aada u qurux badan oon ka helay intii yareedan joogay dadka reer jabuutina runtii waa dad wanaagsan oo qalbi nadiif ah iyo kalgacal bay nagu soo dhaweeyeen aadna waxay noola qaybsanayeen farxaddii mana ilaawi doono aad baan ugu mahadcelinayaa mar kalena waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waana jeclay insha allah marar kale inaan ku noqdo jabuuti waa tahay inagana waan salaaminaa shacabka reer jabuuti meel wada joogaanba nolol farxad leh iyo qiimo ayaanu rajeynaynaa waa tahay waxaa tiri qurbo weegeed dhismahaad yaraagtay mise dadka magaaladu aad bay u dhisantay markaan dhex marinay weyna aad bay qurux badneyd dadkuna dee dad deegaanka la qabsaday unbay ahaayeen marka way isku soo baxayeen aad bay u qurux badneyd hablaha meel kastay joogaanba suugaanta yaqaana ama curiya ama tiriya laakiin la baqayo qulubtooda ay ka buuxdo maxaad oran lahayd fariin nooceed maanta u diri lahayd haddii aan kaltuun jaanis iyo walow aan jaanisyo kale ku siinayo laakiin hablaha markan maxaad u diri lahayd waxaan u dirayaa hablaha inan kasta oo isku og inay leedahay hibo hal abuurnimo waxaan ku dardaarayaa aan leeyahay soo bandhig hibadaada waan ku garab istaagaynaa insha allah waad guuleysanaysaa waxaanan doonaya inaan u sheego markay suugaanta ama fariin kastoo markay ama nin diraya ama gabadhi iminka suugaan hadday gabadhi fariin suugaaneed dirayso waxaan aaminsanahay inay ka saameyn badan tahay
fariin u nindirayo aad bay usoo jiidataa suugaanta haweenku dadka hadday buraabur noqoto iyo hadday hab kaloo sugaameed kale ku gudbinayso marka waxaan leeyahay inan kasta oo hal abuurkeeda la cabsanaysa soo bandhig hibadeeda anaguna waan ku garab istaagnaa waa ballan insha allah waanad guuleysanaysaa aynu ku yar noqono madasheenii sacabkiisa waxaanka lagugu soo dhaweeyey lagu yiri kaalinta koobaad baad ku guuleysatay kaalintii markii lagugu dhawaaqay sacabkii lagu tumay maxaa abaalmarin lagu siiyey ilaa qofku markuu tartamay leeyahay kaalin baad gashay maxaa abaalmarin lagu ku helo tartankan horta waxaan jeclahay mar kale inaan baahda BBC da halkan uga mahadnaqo runtii waxayna siiyeen dhiirigelin ballaaran sanadkii saddexaad buu ahaa tartanku waxaan rajeynaynaa intaa in ka badan inay sii wadaan hablo badan ay hankooda sare u qaadaan tafatiraha laanta BBC da Cabdullaahi Cabdishaakh iyo dhammaan bahdii kale la joogtay iyo dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin tartanku sidii hore u ognay wax weeyaan dhiirigelin markaas abaalmarintana la siiyey waxay ahayd shahaado muujinaysa in dadka guuleystay iyo kaalmaha ay ku kala guuleysteen dhaqaalana uu la socday madaxdii madashaas timi ee Djibouti ka socotay dalka Djibouti yaad ka xasuusataa mas'uuliyiinta ama wasiiro ama agaasimayaal ama madaxda ee madasha nagala soo qayb gashay iyagana aad baan ugu mahad celinayaa siday waqtigooda noo soo siiyeen noo soo dhaweeyeen noo dhiirigeliyeen farxadeen badan siiyeen oo na tuseen waxaan qabanay inay wax wanaagsan tahay waxweeyaan wasiirka dhaqanka Muumin Xasan Bare wasiirka dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Bare iyo wasiirada haweenka Muumina Xumed Xasan labadaas wasiir baan la joogay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waan arkaayo dareenkaaga markaad ka sheekaynayso Djibouti iyo gabayadii aad ka qayb gashay iyo madashii iyo dareenkaaga waa isbedelaya dareen farxadeed buu noqonayaa ma jeceshay mar labaad in haddii lagu yiraaho maanta tartankii kale ka qayb galay inaad ka qayb gashay iyo qaar kaleba tartanka laftiisa inaan ku noqdo ma jecli waxaan jecelahay hablaha kale la abuurka inaan fursada siiyo laakiin tartamo kale oo ka duwan hadday soo baxaan diyaar baan u ahay inaan ka qayb galo laakiin tartanka BBC inaan mar dambe ku noqdo oo fursad celiirsibeedana noqonaysa hablaha la abuurka kale doonayeen fursad iyaguna helaan marka isaga kuma noqonayo laakiin tartamo kale hadday soo baxaan insha Allah waan ka qayb galiyaa oo qaybtan suugaanta waa tahay daawadayaal intaynaan soo afmeerin waxaan idila socodsiinaynaa barnaamijkeena kartida bulshada waxaynu ku soo kordhin doonaa qayb runtii aad u xiiso badan oo waxtarka bulshada badanaa waxaad nooga barateen inaanu soo xasuuno aan soo marti qaadno hadba qofkii dadkeena ama naftiisa wax u qabtay ama dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabtay hase yeeshee anagu ka barnaamij ahaan waxaan soo kordhin doonaa qayb aad u xiiso badan oo aad arki doontaan ummadda inuu wax ku soo kordhiyo intaanu barnaamijkan la mid ah ku kulmayno anigoo Axmed Xiis Cabdi Ducaysana waa sawir qaadidii iyo farsamadii Cabdirasaaq Cabdilaahi Aadan Cabdirasaaq Qoronto intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno saas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida